أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. takbiirta salaada ciid al-fidrida ayaa maanta magaalada Boorama lagu waabariistay masaajidada kala duwan ee ku yaala magaalada Boorama iyo sidoo kale barxadaha kala duwan ee loogu talagalay in lagu oogo salaada ciid al-fidrida. halkani waa masjidka jaamaca weyn ee magaalada Boorama waxaana salaadii ciidda kala soo qayb galay mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada. tukashada salaada ciidda kadib waxa halkaas ka hadlay duqa degmada Boorama mas'uuliyiintii ka socotay xukuumadda Soomaaliland ayaa hambalyo iyo bogaadinba u diray dhammaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan shacabka Boorama isla markaana ugu hambalyeeyay munaasabada ciid al-fidrida. waxaynu doonaynaa inaynu bacadlaheena kolay guddida bacadlahana horaan isku aragnay waxaan rajaynaynaa inta shiwaalka inaan waqti siino oo dadku wax kaga furtaan wixii meelaha ka yaalay wadooyinkaana haddii ilaahay la furi doono marka ciidda shiwaalka la tukado muddo bil ah baynu sugaynay 6 cishana waan ugu kordhinaynaa haddii ilaahay intaa waxay noo soo raacaa dhagaxaanta wadooyinka yaala ee wadooyinka xidhay wadooyin fara badan oo waxa jira dhagaxaano xidhay yihiin oo guryo la dhisay 20 sano ama 30 sano ka hor ilaa iminka dhagaxaantu ay yaalaan dhagaxaantaana waxaan siinaynaa waqti kooban haddii ilaahay idhaahdo oo ugu talagalnay 2 week ama 15 cisho qofkii gurigiisu dhismay iminka aanu ka socon inuu kaga gurto dhagaxaanta haddii kalena aynu uga faa'iideysan doono waxyaabo kale ummadda anfacaya. bishii barakaysnay ee Ramadaan inagoo nabad qabna caafimaad qabna isku keenay maanta masjid jaamici magaalada Boorama anigoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba ay joogaan iyo shacabka magaalada Boorama oo aanu maanta aniga agaasibihii guud ee wasaaradda gaadiidka maayirkii magaalada masjid jaamici magaalada Boorama kula soo ciiday ayaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa. runtii farxad weyn bay noo tahay inaan halkan kula ciidno shacabweynaha magaalada Boorama waxaanu hambalyo tahniyad idin ka wadnaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. ilaahay horta naga aqbalo cibaadadii aan soo sameynay bisha Ramadaan soonkii iyo salaadii aynu soo cibaadeysanay ilaahay baa mahad leh ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa nimcooyinka faraha badan loo siiyay marka haddaynu soo koobaysnaano nimcooyinka ilaahayna siiyay waxaanu tirin karayno iyo waxaanu tiro koobi karnaa ma ugu dambeyn dardaaranka halkan ugu diraya wax weeyaan maalmaha ciidaha iyo maalmaha la faraxsan yahay dadkeenu inta badan waxay jecel yihiin marka inay safraan inay magaalooyinka ka baxaan haddii magaalooyinka dhex joogaan inay gawaadhi intay ka haystaan ee magaalada dhex maraan waxaan kula dardaaranaa markaa in si taxadar loo socdo in beelka la xidho in laga ilaaliyo markaa qofku inuu shil ilaahay naguma keenee ay naf badan iyo hanti badan markaa inaga lunto mar labaad iyo mar saddexaad reer Boorama iyo reer Somaliland waxaan leeyahay baarakallah الرحيم كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومن صالح الأعمال waxaan hambaliyada ciidda u diraya dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan taqaanay gobolka Awdal anigoo ka wakiila barasaabka gobolka Awdal waxaan farxad la wadaagayaa dhammaan shacabweynaha muslimiinta كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير